السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بدمان تدوينها شرفت لي هالكن إيجا داونية قارهان شهليد يوكي وان وضا سلامي ميلكستو أدوية أدكتشوكتان waxaa kaliya aan halkan maanta u soo qabsaday in aan waxoogaa update nasiiyo waxa aan maalintii iskuulkii dambeysay waxaanu ka hadalnay dhimashada inta ay marayso maalinta waxay maraysay 104 qof maanta waxa ay maraysaa dhimashada UK inta dhimatay UK oo dhan 8,000 oo dhow ayay maraysaa marka waad arkaysaa faraqa u dhaxeeya waxa kale oo hadda imika soo kordhay in aad looga dayrinayo in Brito iyo Saadambe ay dhimashadu sii badato waayo shalay waxa dhintay 900 ku dhawaad daraad waxa dhintay 800 maanta waxa la sugayaa inay dhintaan 1,000 qof maanta oo ay tahay bishu ay 10 eegana waxa la filayaa in ay dhintaan 1,000 qof marka arrimahaasi marka maaha ciyaar waxa loo baahan yahay in si weyn looga diyaar garoobo haddaba waxaan dadweynaha ka codsanaynaa in aanay guryaha ka soo bixin inay ilaaliyaan nadaafadda guud ahaan in waxa kale oo soo kordhay ambalaasyadii gabaabsi bay noqdeen marka ambalaaska marka aad wacdid haddii uu kuugu iman waayo 18 minute haddii kuugu iman waayo waxa weeyaan in aad ogaatay inaana ambalaaskaasi soo socon depends qofka conditionkiisa sida uu yahay marka waan si weynayna in ambalaasyadina ay gabaabsi yihiin waxa kaloo iyaguna gabaabsi ah meelihii dadka lagu aasayay iyo meelihii lagu haynayay qofku marka uu dhinto waxyaabahaas oo dhan waa laga dayrinayaa marka waa in communitygu waxaas oo dhan uu ka diyaar garoobaa sidoo kale qofkii meydkiisa aasanaya wixii amba qofkii cusbitaalka la dhigay waa in dadka Soomaalidu is caawiyaan qofkii xabaal loo iibinayo qofkii si degdeg loo aasayo waxaas oo dhan waa in qof walba wixii aad kari karaysa donation aad ku caawisa waayo imika hadda meydkii wuu farabatay marka waxaa hadda dhici doonta next week in meydka oo dhan ay ciidanku ay qaadaan oo magaaladan London waayo meelihii way buuxsameen in banaanka magaalooyinka dhimashadu ku yartahay la geeyo oo halkaa lagu aaso oo xabaal wadareedyo la sameeyo intii isku diinaba meel loo qaado marka arintaasna waa inaad la socotaan xaaladaas soo socota waxa kale oo iyadana hadda bilaabmaysa amba this week in dadka la joojin doono oo iyadana la weydiin doono qofku xagga uu socdo iyo waxa uu samaynayo marka wax necessary mooyaane bixitaankii easy-ga ahaa waa la joojiyay marka waa in qof walba waxa badaawo ugu soonaada arrimaha kale oo jeclahayna community-ga ayagana ka wacyigeliyo waxa jirta dad iyagu xanuunka ka kacay oo imika muddadii u dhamaatay oo suuqa soo galay marka dadka please waxaan ka codsanaynaa in ayna bulshada dhexgelin oo aanay dadka salaamin oo aanay baabuurtooda dadka ku qaadin waayo baabuurka hadduu ku qaado waad ka qaadaysaa marka in aad guryihiina fadhidaan weli laydima fasaxin laakiinse xanuunkii waad ka bogsateen laakiin guriga jooga idinka laftiguna ha soo bixin waxa kaloo la mamnuucay exercise-kii banaanka lagu sameynayay amba ha ahaado socod amba ha ahaado mid qofku uu taga meel jiima ka waa la joojiyay marka qof walba gurigaaga joog waxa kale oo la joojiyay maqaaxiyihii cuntada laga cunay marka maqaaxiyaha hadda waan aragnay qaar Soomaali wali in furan yihiin marka ma aha certified in dadku inay cunto u doontaan maqaaxiyaha marka qof walba gurigaaga cunto ku karso shoppingada aad baa looga dayrinayaa wuxuu leeyahay procedure dheer oo shoppingka loo maro hadhow markaad grocery-ga soo iibsanaysaana wuxuu u baahan yahay in la raaco qawaaniinta ee dawladdu ugu tala gashay marka waxaan jecelnahay haddii ay suurtagal inoo noqoto TV-yada magaalada London ka howlgala in aan qaar maalin u yeedhno oo aan tusno qaabka Soomaalida looga baahan
yahay inkasta oo aanay hadda ay collapsing sameeyeen aanu jirin tvgii qaranka amba kii federaalku isagu xiran yahay kii kale Somaliland isaga laftiisu isaguna ma shaqeeyo marka waxyaabahaasoo dhan waxa ay ku tusaysaa in aanay bulshadu u bislayn in ay wacyigelinteedii ay noqoto mid joogta ah marka qofkii tawaruc ku haya TV camera please hanala soo xiriiro jahliyadda UK si aan barnaamij ugu sameyno joogta ah oo wacyigelina marka intaasi waxa weeyaan qolooyinka meediyaha iyo TV-yada waxaan kaloo jecelahay in maalin kasta Monday gelinka dambe ay nala soo xiriiraan si aan u sheegno waayo maalin kasta Monday baa la update gareeyaa dalka marka in maalmahaasi ay nala soo xiriiraan si aan u sii deyno wixii kolba jira habeen walbana waxaan jecelahay inaanu soo deyn doono website-yada aan hadii jeer ka heli doontaan jahliyadda amba Somali diaspora aan hadii jeer aan ku qori doono walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan jeclahay maanta intaa inaan idinla wadaago dhammaantiin waxaan leeyahay jimco wanaagsan maanta bishu waa 10 saacaduna imika waxa weeyaan waa 2 marka intaasaan jeclahay inaan xusuusiyo waxaa kaliya aan mar labaad in xusuusinaya distance-ka baabuurta ayaa idinku soo korodhay baabuurta la wado waxa weeyaan sida awalba aad ogeydeen wadankan qawaaniin buu leeyahay marka barafleydu hadii jeer waxay isku dhaxaysiyeen ilaa iyo 6 mitir meelaha marka halkan waxa la qorshay in baabuurka ka horeeya aad u jirsato hadaad baabuur wado 2 mitir ayaad u jirsanaysaa inta taayirkiisa hoose aad arkaysid oo sida sharciga ku qoran marka hadda waxa laga sii diray way daaqada kale haduu u furan yahay daaqada darawalka ka horeeya oo hindisidiisa uu soo gaaraysa marka always gaariga dambe hadaad saaran tahay wayna dib aad uga fogaata sidoo kale baabuurta waxaan ka codsanaynaa iyagana inayna dad badan qaadin oo aan cudurkiis qaadsin marka sida ay nabadgeliyo maanta waxaan leeyahay qof walba qofka kala ilaali adiguna naftaada ilaali xaasaskaaga ilaali caruurtaada ilaali shoppingka meel walbana halaga taxadiro marxalad adag baynu ku jirnaa halana la iskaalmeeyo qofkii u baahan magaranaysa in xabaasha laga caawiyo in qof walba donation wixii aad bixin karto inaad bixisid si meydka loo aaso loo dedejiyo marka khayr baan idin rajaynayaa maalin wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته